shaqaysiin kari waayey ama ka shaqayn kari waayey taa way saamaynaysaa galmudug hadda waaba iyagii hirshabeelle waa iyagii laakiin waxaa ka badbaadi kara sida aan isleenahay puntland oo furaha bedelatay oo ka dhigatay ma arkayse macnihii 9 eber noocaasi iyo somaliland oo iyaduna furaha si u bedelatay ma arkayse macnihii sheerka rasmiga ah toos soomaaliya wixii ka dhexeeyey furayaashana macnihii ula qaybsaday nimankan xamar degan marka horta ma arkayse macnihii 5%tiina waxaa weeye meelmarinteedu way taagan tahay magaalada muqdisho xukuumadda damul jadiid waxay soo dhajiyeen maantay in ay macnihii furayaan koorsooyin meel lagu baranayo koorsooyin afka amxaarada luuqadda amxaariga ayaa la baranayaa baa layidhi oo mudnaanta koobaad la siinaya meeshaasi su-aal baa ka soo baxaysa luuqadda amxaariga ah in mudnaanta koobaad la siiyo sababtu waa maxay maxay ula jeedaan ma amxaaraday jecel yihiin mise way ka soo horjeedaan labadaba u qaado amxaarada way jecel yihiin laakiin daarood iyo digil aw miriflaha kaga hormaray iyaguna waxay la dirirsanaayeen daarood iyo digil aw mirifle saaxada siyaasadda inay ka saaraan haddana dirtaaba ku soo biiraysa oo ma arkayse nafsadoodaa la rabaa ma arkayse in lagu daro gumaadka la gumaadaya sida u dhigan ma arkayse hawii siyaasiyiintooda yaanan ku wareejin marka hadday amxaarada ay la heshiin kari waayeen oo macnihii mar walbana ay iyagu duulaan ku yihiin Addis Ababaan qabsanaynaa ay ku bootaynayaan iyagoon awoodi karin ay ku fashilmeen marar fara badan oo 2006 96 ee xasan daahir uu hogaaminayay maxaakiimtii aad ogtiin Addis Ababaan ku tukanaynaa indha cadde ma arkayse Ilyas Ali adiga warkaaga laguma kalsoonaan karo sababtoo taa waxaa tahay shakhsi mucaarad ah yes si fiican u hadashay laakiin yaasaya inaad tahay habar gidir de ma arkayse aniga kuma soo qasbin meeshaan imowna kuma dhihin kalsooni darro daawo kuma dhihin marka daaqadda inaad isaga tagtidaa fiican laakiin maanta haddii aan ammaano sida aad wax u rabtid masaarida iyo dulmiga haddaan ammaano isbaara haddaan ammaano warkaaga waa lagu kalsoonaan karaa baad ileedahay marka waqti inaan kugu dhumiyo ma ahan dad tira badan oo ma arkaysa meeshaan war ka qaadanaya ayaa kaa badan waan sii socon doonaa marka yacni ujeeddada ay ka leeyihiin waxaa weeye in jaajuusnimo ay u bartaan laakiin waa too late waa goor dambe dadkan inaysan fakaraynin isbaarada caqligooda inuu yahay waa dareemaysaa hadday fakarayaan fiiri haddii aad dawlad la dagaalamaysid waa macnihii sanadaha la isu diyaariyaa sirdoonaa la dhistaa afafaa la bartaa hadda iyo kow af amxaaraan baranaynaa goor xeere iyo fandhaal ay kala dhaceen oo feerfeer ay soo degeen etoobiyaankii hadda etoobiyaanka iskama soo degin masalan kenya markaad tidhahday soo degeen marka hadda ma af amxaar hadda ma barane isla hadda af amxaarkii aad baratay miyaa haddana aad ku jaajuusaysaa nimay aan la isku dheeldheelin fiiri Soomaaliya markii dagaalka 77 la galay Soomaalida kuwa u jaajuusaa jiray ogaadeenka kowka ahaa iyagana la xoreynay xooggeena markaan ku bixinay markaan u dasheego iyo wixii Soomaali galbeed degan oo dhan markay Etoobiyaanka u jaajuusayaan markii dambe waxa la dhambaalada sirta militariga ah af may ha lagu gudbiyo mayga sida maanta loo wada yaqaan ma ahayn ciidamada waxa marka dhambaal ay isu diri jireen ha awgeedo aw galoolow ha macni ma arkayse fidhacaara ha aw isaaq sidaasaa lagu gudbin jiray faamay manuur aa lagu gudbin jiray dhambaalka sidaasaan Etoobiyaanka aan ku jabinay laakiin dadkii dhambaalka afkii gooniga sirta ahaa oo idinku laakiin aad caayayse fiiri Soomaalida hodantinimadeeda ilaahay wuxuu siiyey af u kayd ah oo dalka haddii lagu soo duulana sirta macnihii militariga loo adeegsan karo waana loo adeegsaday haddana eelay oromay ku hadashaa eelay sidaas waay maanta kuwii sirtii macnihii sirtii la isticmaali la afkiina maanta Etoobiyaanka ay la jiraan because adaa dilay adaa laga baxsan waay dadkaasi intay soo baxeen guriyo dad kuma duulin beero dad kuma duulin kuma dhixin kuma isbaaraysanin waa laga joogi kari waayey haddii laga joogi kari waayey
oo masar aad u gacan taagatay fiiri shishay fiiri qaran dumis annagu qaran say u lahaayeen qarankii masar uu naga riday hadda deriska dhaama be laba gaal isuba kay dhaamaan kayga galbeed maxaa diiday haddii masar aa ka dhaxday si aad aniga ii dishid anoonan ku dulmin gurigaaga isbaaro dhiganin beertaada isbaaro dhiganin laakiin adiga keliya 30 sano igu soo duulaayay aniga resistance aan ahaa haddaad masar aad aaday qaahira iyo Addis Ababa midda ii dhow aniga adduunyo jiiraan aakhiro olog aakhiro deriskaaga waa lagu weydiinaya gaal derisaa lagu yidhi laguma dhihin gaal islaam yuhuud buudhi laguma dhihin deriskaaga ka warqabaa lagu yidhi daragtiisii iyo gaajadiisa ixtiraam sii rasuulku wuxuu yidhi haddii qof uu dhexlaayo deriskaa isdhexlaayaan dhihi lahaa intaasi ma iga haysaa okay waaya walaalayaal hadda iyo af amxaaraan baranaynaa marka hadha ma tahay mise fiiri isbaara say u kor fadhiyeen xisaabta markay ku timaaday af amxaaraan baranaynaa intee in la eg bay baranayaan marka intee in la eg fiiri afka markaa baratid keliya kuma sinna intaasi taqasus u baahan yahay waxaa jira diplomatic iyo ma arkaysa macnaheedu social language iyo political language diplomatic isagaa politic ah kow haddana marka intaas aa baratid dhambaal baa jira oo af amxaarkii nafsadiisii ayaa ciidamada sir qaab ay ugu hadlaan bay leeyihiin ama qaab ay qoraallada isu gudbiyaan maxaad haysataa adiga marka ma waxaa rabtaa 6 bilood koorsadii ingiriiska brifadadii muqdisho oo kale saas maa macnihi adaa waayey buuggii lagu sii beydkiina ku oy bajeela la'aanta beydkiina ku oy fiiri shalaa lagu yidhi farmaajo markuu joogo warnimayow integration aan samayno intaasaan cadow macnaha aan isu dilayno Ethiopia iyo annaga laakiin maantay Ethiopiyadu waa Ethiopiyada cusub annagaa dulmi wadana naguma soo xadgudbayaan annagana ayaan ku xadgudbin ciidamo 100,000 oo gobol aan dhisanno isla markaana dadkeena macnaha ganacsiga ha wadaagaano annaga meel walbaan ka ganacsanaa haddaba ma arkaysa macnaha East Africa na lagu daraayaa oo 300 milyan ah 120 milyan aan macnaha suuqan dihan aan la ganacsanno maya amxaarana lagu daraaya sidaasana la yeelaya farmaajo dakadii u gatay badii u gatay how about today maanta ka waran shalay haddii farmaajo aa ka yeeli lahayd waana nabadgeli lahayd af amxaarkana waa baran lahayd ciidan xoogganna uu ku dhisaayey amxaarada hadda kaa celinaya laakiin ciidankiina waa cuntay afkiina kama aadan faa'iidaysan koorsadii farmaajo ushii sayid farmaajo daaroodka ay soo siiyeen seeftiina waa xaddeen daabka ahayd waa dubateen wax yaallaa male fiiri seeftii sayid farmaajo daaroodka ay soo siiyeen fiiri intuu soo qaaday oo madaxtooyada dhigay waa sii xaddeen sayidka macnaha sayid farmaajo seeftiisii waa dubateen oo haddana masquulaa geyseen amxaaradii mar hore afka aad baran lahayd free aa ku baran lahaydna farmaajo waxaa tiri may macnihi uuna iibsanayaa amxaaruu nagu darayaa now $500 ka horse ku dhiibaysa haddana soomaaliyay seed u socotaan intaa u socota fiiri shalay free ku baraa lagu yidhi afka amxaarka af waa xaaraan yaa ku yidhi sideedaba macnihi jaahilnimada isbaaraystayaashaan kuu sheegaya waa nimanka maxaakiim markay fureen luuqadda ingiriiska af gaalo waa ciddii dhigtaa waa la dilaa soo dejiye waa nebi maxamedna af yuhuud hala bartuu yidhi xataa iskaba dhaaf qoom walba luuqadooda markaa taqaanid baad ka nabadgelaysaa jaahiliyadooda fiiri shalay farmaajo free ku bartuu yidhi afka amxaarada Addis Ababa dukaankooda inuu ka furnaadana way rabaan kareem iyo ay ku gadgadaan ay ku nabadgalaan xamarna qofka Etoobiyaanka inuu dukaan ka furta ma ogola kama nabadgalayo kabishi waaya maantay dollar ay ku baranayaan afka amxaariga damul jadiid yaa furay ma taqaanaa
ninkii shalay lahaa Ethiopia waa cadowgeena war Ethiopia waa cadowgeena maxay tahay adiga shiinu khudbad ka jeedina Ethiopia is our enemy very very enemy chokolo ku bangush English war adiga wasiir arrimo dibadeeda tahay agenda meesha u tagtay shiina waa vita power fiiri wixii kaaga go'aya Soomaaliya adoo matalaya ka gooso laakiin ma arkaysa macnaheedu intaad shiina hor istaagtid Ethiopia is our enemy marka leedahay Ethiopianka ma arkaysa soo ma ogid shiinaha inay iska ka dhow yihiin waayahay yaa marka hadda macnaheedu horboodaya wasiirka arrimaha dibadda yaa waaye fiqi iyo u dhashay Abdullah Saad habar gidirtii jabtay qarnigan ayuu u dhashay oo meel walba cadow ka samaysatay oo laga kala cararayo oo meel walba dab kaga shidaya koow Soomaaliya marka su'aal baan idin weydiinayaa dawladda Soomaaliya waxay dhihi rabtaa deg afka amxaarka loo barto si shacabka ay u soo jaajuusaan sirta Etoobiyaanka dalka ku soo duulay madaxweynaha Soomaaliya shalay jimcihii masaajidka inuu ka istaagu rabay isagoo soo rakibtay oo hadli raba wadaadkii si farsamaysan uga reebay marka sidaa loo tukaday wadaadkii makrofoonka oo ku booday wacdi iyo isbihin oo galay xasan meel uu ka qabsado waayay shalay ma ahana shalay uu rabay inuu nagu soo afuufo sababta uu soo degdegay masaajidku rabay shalay toole jimcihii inaysan dhaafin baash horta ma arkaysa shalay toole inuu nagu soo afuufo amxaaraa dalkii nagu soo duushay cadow soo jireena beenihiisii inuu akhriyo doonay waay maantay baraha bulshada waxa la ila soo wadaagay clip dadka hadli raba waa siinayaa waa u jeeda dad soo wactamay ma arkaysa marka aan dhameeyo masaarida meesha ay dagaysa markaan kuu sheego soo wactan chance waa ku siinaya hadii Ilaahay uu ka raali noqdo qof walba oo Soomaaliya because arrinkan waa arrin naqusaya waa arrin masiiri ah ma arkaysa waa wax dhamaanteena ina taabanaya dal joog ama dibad joog qarax ayaa dhacay dayni la qaraxa ka dhacay waa sheegay sida sirta ay nagu soo gaadhay dadna way ku dhamaadeenan lagu dhahay laakiin faahfaahinta rasmiga ayaanu sugaynaa studio-na warbaahinta SMC way yaani horaan waxaan idin kugu sheegnay warnimayo ma arkaysa ciidamada xataa in la xiraayo guriyaha loogu dhacaayo maantay marka waxaan idin sheegaynay ma haysaan askarigii dawladda u shaqeynayay ma la afduubanaya madax furasho xamar gudaheeda maxaa looga cabanaya marka Liibiya madax furasho ka jirta Tanzania madax furasho ka jirta maxaa waxaas loo dhahay hadda madax furasho shacab waa la iskala tagay fiiri daraad waxaan ku dhalinyarada la ururinaya sheekadaas waa la iskala tagay hadda now askartii ayaa la afduubanaya askarigan yuu yahay daarood iyo afduub intaas bixi saaxib askarigan yuu yahay balaysa military askarigan yuu yahay dan wadaag iyo afduub mar dhow marka haddii macnii ilmaha dhalanaya hal soo diiwaan geliyo lagu dhahay kuwa dhalan doonana macnii lacag la iska rabo galmada ninkii naagtana macnii kaamirad loogu xiri doono bishii intaas jeera galmooteen naagyahay adna intaas laga rabaa waxaa intaas sii dheer oo macnii lagu soo rogi doonaa dadka magaalada Muqdisho jooga Soomaaliya oo macnii 5% xagga macnii ka gudub riyooyinkaaga lagu xisaabi doonaa bishii imisa riyaad aragtay marka dambe habeenkii imisa saacadooda seexatay saacadaha habeenkii aad seexanaysid ku dhufo oo lagu dhufanaya way tusaale hadda meeshan la leeyahay bulamareer iyo maxaa ka taagan waagii hore nimanka habar gidirta meesha jooga ee tuutaa dawladda wata dadka deegaanka degan ee Maryland inta iska soo urursadaan ayay 700 500 kun ay ku gadgadan jireen dadkii marka dambe waxay dhaheen ama macnii hana la dilo ama yaana la dilin ma arkaysa macnii waalidkii cunug laga qabsadaa shabaab beena lagu shaabadayna okay iska hayso markay lacag ka waayeen waa kan hadda ma arkaysa magaalada Muqdisho ay fiila ka soo xidheen leen qofkii lacag ma dhiibi waayay xamara loo soo gudbina waa shabaab abalay marka
hadhowdii marka toddobadii boqol ee lagaa rabay iyo 4,000 oo kale oo xamar ay ku saaratay beertaa gadaysaa waana lagaala wareegayaa gurigaa gadaysaa waa lagaala wareegayaa marka dambe marka hurdada maaragtay meeqa saacado riyada waa lagaa qaaday lacagta hurdada waxaa lagu leeyahay meeqa saacadood ayaad hurday bishaan hani bishaan intaan hurdamaanaha og Soomaaliya gacan iyo afaa la raadinayaa inta saacadood aad hurdama maalin walba xisaabi kartaa okay bishii meeqa jeer ayaa cijiya iska jartay bishii meeqa jeer ayaa timaa jaratay marka dambe marka bidaarta la isku qabsan doonaa ilaahu bidaar iyeel because raisla haddaan taga dhibaataan la kulmaaya lacagaa laga rabaa raisliina lacag uu rabaa tima jarahan timii aad jaratayna bishii inta jeer aad jarato waa lagaa rabaa hay gabdhaha imisa jeer baa bukiyeeri tagtay bishaan